waxaa soo gaaray magaalada Johannesburg diblomaasiyiin ka socda waaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya. wafdiga uu yimid tababar aqoon kororsi ah oo ay u fidisay dawladda Koonfur Afrika. madax ka tirsan safaaradda Soomaalida iyo dad shacab ah ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg. seminaarkan aqoon kororsiga ayaa lagu wadaa inuu furmo maalinta Isniinta ah. wafdiga oo tiradoodu gaaraya 20 ruux ayaa waxaa durbaah u gudbeen xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Pretoria. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Koonfur Afrika Sayid Shariif Cabdullaahi oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa shaaciyay in wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji ay dhawaan imaan doonto dalkani Koonfur Afrika si ay u xoojiso buu yiri xiriirka labada wadan. dhigiisa uu la yeesho ay ku kulmaan magaalada la yiraahdo Cape Town wuxuuna la kulmayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga South Africa Fransman kadibna waxay isla soo qaadi doonaan sida xiriirka labada dal loo xoojin lahaa loona wanaajin lahaa wadada labada dal ay ku kala faa'iideysan lahaayeenna loo fali lahaa. ugu dambeyntiina arintani ayaa waxa ay muujinaysaa xiriirka wanaagsan ee ka dhex bilowday dawladaha Soomaaliya iyo dalkani Koonfur Afrika oo xiriir hore aan u dhaxmarin. Cabdixakiin Ibraahim Cawaale, Somali Sat TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.